dowladda Soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa intii ay talada dalka qabatay waxay qaadatay go'aan cusub oo xilalka qaranka loo magacaabayo. Madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada xukuumadda ayaa ka siman inay xilalka u magacaabayaan si qarsoodi ah iyagoo qaarkood laga ogaado baraha bulshada isla markaana aan loo marin dariiqa sharciga laguna soo saarin faafin rasmi ah ama wareegto madaxweyne. Madaxweyne Farmaajo ayaa wasiirada iyo xildhibaanada dowladda kaga yaabiyey qaabkii uu u magacaabay taliyayaasha ciidamada qalabka sida kuwaas oo qoraal ajende ahaan ah looga akhriyay golaha wasiirada markii uu magacaabidaas sameynayay. Inta badan xilalka dowladdan cusub ay magacaawday ayaa ah kuwo sharci ahaan la duri karo oo aanan ku soo bixin wareegto rasmi ah, waxaana qaarkood dib laga sameeyaa qoraallada xilka qaadista ah kadib markii ay xilka la wareegayaan. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ilaa imika si qarsoodi ah u magacaabay 3 safiir oo baraha bulshada looga hambaliyeeyay iyadoo aan xitaa la soo marin amaba aan loo soo marin golaha wasiirada iyo wasaaradda arrimaha dibadda. Waxaa jira sharci oggolaanaya in madaxweynuhu 10 boqolkiiba safiirada uu soo magacaabi karo haddii ay timaado xaalad amaba baahi degdeg ah, taas oo aanan hadda muuqan maadaama safiirada la magacaabay bilooyin ay ku qaadanayso inay xilalkaasi ka shaqeeyaan. Safiirada uu magacaabay madaxweyne Farmaajo ee wararka ugu dambeeyay sida madaxtooyada naga soo gaaraya ay sheegayaan ayaa ah Cabdiraxmaan Yuusuf Caynte, wasiirka hore ee wasaaradda qorsheynta xukuumaddii hore ee Cumar Cabdirashiid, kaas oo loo magacaabay safiirka safaaradda Soomaaliya ee dalka UK. Caynte oo ay isxigaan ra'iisul wasaare Kheyre wuxuu hore u ahaa wasiirka qorsheynta wuxuuna ka mid yahay saaxiibada ku dhow madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sidoo kale wuxuu ahaa sargaalkii dowladda Soomaaliya u qabanqaabinayay shirkii magaalada London ee arrimaha Soomaaliya looga hadlayay. Shakhsiga kale ee la magacaabay waxaa lagu sheegay magaciisa Jaamac Cabdullaahi Maxamed Caydiid. Waxaa loo magacaabay safiirka dowladda Soomaaliya u fadhi doona dhinaca waddanka Turkiga. Ninkan ayaa ka mid ahaa saaxiibadii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ololihiisa doorashada. Waa nin gabi ahaanba ku cusub diblomaasiyadda siyaasadda Soomaaliya, laakiin in loo magacaabo waddanka Turkiga oo ah waddanka ugu saameynta badan Soomaaliya ayaa ah mid ka dhigaysa safiir shaqo badan oo la filayo in uu wax badan kusoo kordhiyo dowladda gaar ahaan xiriirka dowladda Soomaaliya iyo waddankaasi Turkiga. Turkiga ayaa muddo fara badan ay ku qaadanaysaa inuu garab istaago shacabka iyo sidoo kale dowladda Soomaaliya. Safiirka saddexaad ayaa lagu sheegay Abuukar Daahir Cusmaan Baalle. Abuukar waa agaasimihii ugu dambeeyay ee madaxtooyada Soomaaliya waxaana xilka laga qaaday markii uu wax ka yar 2 bilood uu joogay madaxtooyada Villa Soomaaliya iyadoo lagu bedelay Fahad Yaasiin oo hadda ah agaasimaha guud ee madaxtooyada Soomaaliya. Waxaa loo magacaabay sida ay wararka sheegayaan xil cusub kaas oo noqon doona wakiilka qaramada midoobay. Xilka wakiilka qaramada midoobay ayaa waxaa horey u hayay wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya Yuusuf Garaad, kaas oo tan iyo markii xilkaasi wasiirnimada